بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع مبارك. waxaan rabaa maanta halkan inaan kaga hadlo arrin muhiim ah oo ah muhiimadda ay leedahay bixinta canshuuraha dalka. waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan ku wacyigelino in haddii aan canshuur la bixin in dowladnimo aysan jiraynin. ma jiro adduunka dal dowladnimadiisu shaqayso horumar gaara haddii aan canshuur la bixin. adduunka maamaha baa jirta oo la isticmaalo universal adduunka oo la yiraahdo wax la hubo canshuur iyo dhimashaa jirta. macnaheedu waxa weeye laga hadlayaa waxa weeye inay muhiim tahay in dadku ay bixiyaan canshuurta. dowladnimaduna asalkeeda iyo bayskeedu uu ka bilowdo canshuur kuna dhammaado canshuurta bixinteeda. dowladnimo ma jirayso, nidaam iyo kala dambeyn ma jirayso, amni ma jirayo, horumar ma jirayo haddii aan canshuurta la bixinin. baryahan waxaan maqlaynay arrin wasaaso ka taagneed oo ahayd in la yiraahdo canshuurtii dowladda oo sharciga ahayd oo golayaasha dowladda martay in dad ay hor istaageen oo yiraahdeen bixin mayno. marka waxaan rabnaa inaan dadka yaga u sheegno una dhimrino lana hadalno kuna wacyigelino muhiimadda canshuurta bixinteeda oo leedahay. taas weeye ujeedada maanta aan halkaan isugu nimid. dowladda hawlo badan baa u yaala. dowladda waxaa la rabaa inay mushaar bixiso, waxaa la rabaa in ay dalka difaacdo, waxaa la rabaa inay horumar kusoo kordhiso. Puntland alxamdulillah horumar badan baa ka socda. dowladnimo wanaagsan ayaa ka jirta. amni iyo kala dambeyn baa ka jirta. iskamana yimaadaan waxaasi haddii aan laga wada shaqayn ganacsato iyo shacab iyo dowlad. haddii aan laga wada shaqayn horumarkaasu mana jirayo, amniga iyo kala dambeyntuna ma ay jirayso. taa in la ogaado ayaa loo baahan yahay. haddaan canshuur la bixin ma amni ma jirayo. haddaan canshuur la bixin waxbarasho ma jiraysa. haddaan canshuur la bixinin caafimaad ma jiraya. haddaan canshuur la bixinin jidad iyo diyaarada iyo aerobortooyin iyo dekada iyo ma la helayaa wey. waa maya. waxaan rabnaa marka waxaa laga doonayaana waxaas oo horumar oo dalka ka socdaay waxaa kaga soo aaday dadkan laleeyahay canshuurta la bixiyo wixii ugu yaraa uguna sahlanaa weeye. iyadana weeye wax hadda dadka qaarkood ay ka hor imaanayaan oo ay diidan yihiin. waxaa idin sheegayna horta canshuur sideedaba ka hadlaynaahay waa sharci, is the law of the land. waxa weeye sharci dastuuri ah weeye. micnaheedu waxa weeye marka qofka sharcigii ka hor imaanayahay dabcan waa dambiila weeye. saa in loo arkaan rabnaa. waxaan ka hadlaynaahay waa sharciyad. sharcigaas oo laga hor yimaado canshuurta oo la diidaana waxay la mid tahay oo ay tahay waxa weeye iyadoo qofku uu sharciga ka hor imaanayo oo sharciga uu burinayo uu duminayo weeye. taa micnaheedu marka waxa weeye dee lala xisaabtamo oo sharciga la hor keeno ciddii arrintaasi ay ku caddaato. waxaanu runtii isleenahay dadka saa u dhaqmayaahay aan ognahay inay yihiin kuwa dalka waxa hantida ugu badanna ku haysta, nabadgelyada u badanna ku haysta, cidda amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimadu ka faaidaysanaysa wax taraysaana in ayaga yihiin. ayna yihiin kuwa ugu wadaniyada xun dadka noocaas u dhaqmaya. ninka ganacsadaha oo dalkan amnigiisa iyo kala dambeyntiisa ganacsigiisu oo boosaaso laga soo bilaabo ilaa bakool uu tegayo oo ilaa intaas udhaxaysa amni ka raba, badeecadiisu in amni ay ku socoto, oo raba gurigiisu inuu amni ugu furaado, oo raba inuu amni ku seexdo oo kusoo tooso, haddana oranaya canshuur bixin mayo. ninka askariga $70 qaata Puntland ayaa canshuurta laga jaraa. marka kan intaasoo hantiya ku haysta markuu yiraahdo canshuurtii ma bixinayo, dabcan waxa weeye cid uga xumaanaysa ma jirto. cidda ugu dambaysa oo ugu horeysa oo dhibtu gaaraysaana waxa weeye in ayaga yihiin inay ogaadaan ayaa la rabaa. haddaan idin sheego runta ay tahay waxa weeye Puntland canshuur lama bixiyo. Puntland wax canshuur la bixiyaa ma jiraan. sababta waxa weeye waxaa la bixiyaa waa khidamaad services yar oo dekadaasi alaabta lagala soo dago laga qaado weeye. canshuur
profit tax la yiraahdo macaash la yiraahdo lama bixiyo canshuurtii saleska ahayd oo iibka ahayd lama bixiyo canshuurtii excise tax ahayd oo wax soo saarka canshuurta wax soo saarka lama bixiyo canshuurtii dakhliga income tax ka ahayd midna lama bixiyo intaasoo canshuuraha oo waajiba oo dastuuriya oo jira ayaan la bixinin waxaa laga qeylinayaa marka waxa weeye nin ijaar qaata oo la yiri war boqolkiiba 4 canshuurta ku waajibtay ijaarka aad ka qaadato daarahaaga bixi weeye waa ninkii daarta lahaa weeye isagoo daarta ku jirayo amniga ku joogay weeye canshuurta hadda income taxka la yiraahdo canshuurta dakhliga waxa biya waxa weeye waa shaqaale dawladeed oo garanaysan mushaarkooda intuu la eegyahay iyo maxaa la yiraahdaa nin askari oo buurta saaran oo dalka difaaciya u dhimanayo weeye cidda bixisa cid kale oo canshuur hadda dakhli bixisa ma jirto intaasoo canshuura oo uu waajibtay oo in la bixiyo ayaan la bixinin marka waxa ay noo sheegayaan waxa weeye canshuur baan bixina waxa weeye serviceska khidamaadka loo hayo oo dekada yarta markay alaabta keensan baacada ka qaadaan laga qaado weeye wax kale canshuur dalka laga bixiya ma jirto saasaan rabnaa dadka shacbiga reer Puntland inay ogaadaan ganacsatadooda kuwa noocaasa runtii inay ay tahay waxaan siinayaa isbarbardhig example baan siinayaa anigu markaan macalinka aad mushaarka ka qaadan jiray Mareykan dakhligayga yarka boqolkiiba 25 waxaan siin jiray waxa la yiraahdo federal income tax oo ah canshuurta ay qaadato dawladda sare boqolkiiba 4.8 na waxaan ku bixin jiray dakhligayga aan siin jiray dawladda state marka aan ku noolay gobolka New York aan ku noolay ayaan bixin jiray oo siin jiray wax kasta oo iibsado oo dukaan ka soo iibsadana boqolkiiba 8.75 ayaan bixin jiray 8.75% 8.75 ayaan bixin jiray waxaan kaloo bixin jiray canshuur la yiraahdo excise tax oo canshuurta lagula dagaalamo waxyaabaha yani xun oo kamid tahay khamrigu uu kamid yahay sigaarku uu kamid yahay shidaalku sababtoo waxa weeye pollution buu keenayaa shidaalka in la yareeyaa la rabaa isticmaalkiisa sababtoo wuxuu keenayaa inuu hawada uu dhibaateeyo ay kamid tahay sonkorta iyo waxyaabaha caafimaad darrada keena canshuurahaas waxaa la yidhahdaa ear market waxa weeye canshuurta مثلا sonkorta la saaro ama iyo sigaarka iyo waxaa la siiyaa wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa la siiyaa ear market sababtoo waxa weeye maadaama caafimaadka canshuur u baahan yahay dakhli waxaa lagu jahaynayaa canshuurtaasi maadaama ay keento caafimaad darro in la siiyo caafimaadka canshuurta la saaro shidaalka iyo wixii lamid ah in lagu dhiso jidadka waxaasoo canshuur ayaan bixin jiray markii laga soo tago intaa gurigayga xunka oo miskiinka aan deganaa sanadkii waxaan bixin jiray $15,000 sanadkii $15,000 oo kala barabar ay tahay school tax canshuurta iskuulka oo haddaad caruur leedahay iyo haddaadan lahaynba aad bixinayso waxaasoo canshuur aan bixin jirayna wax aniga gaar iga soo gaari jiray cabdulahaan ma aysan jirin oo aniga iga soo laaban jiray waad garan kartaa waxa weeye waa wax ka badan boqolkiiba 50 dakhliga qofka miskiinka uu qaato taa markii laga soo tago adduunka aan ku noolahay oo sharciyadu ka jirto ma jiro dambi ka weyn qof uu galo inuu diido canshuur runta inuu sheegay ma jiro dambi ka weyn sababtoo waxa weeye dawladnimada ku dhisan sababtoo qofkaas markuu diido canshuur bixiyo waxa weeye dawladnimadu ka soo horjeestay dawladnimadii ayuu duminayaa weeye saa in loo fahmaa la rabaa waxa weeye ka aasaaska dawladnimada canshuura haddii qofka canshuurta diido waxa weeye dabcan waxa weeye waa qof dawladnimo aan rabin kala dambeyn aan rabin nidaam aan rabin weeye taasaa keenta marka in dambiga ugu culus oo dilka ka xun dalalka dawladnimada dhabta ka jirta uu yahay qofka diida canshuurta ka hor yimaada waxaan ka hadlaynaa marka canshuur inta la eego laga qaylinaya dadka aan u fasirnaa rabnaa dadka aan been loo sheegin waxa weeye $700 ninka ijaar qaataahi boqolkiiba 4 markii lagu dhuftaahi waa amisa waa $28 way waxa la leeyahay bix hadduu bixin jiray qaadan jiray $700 $20 kaliya dawladda intaasoo hawla ku haysa si weeye laguma laha qofka yani ijaarka ku jiro oo guriga degan waxaa lagu leeyahay qofka ownerka marka sabab ninka ijaarka degan guriga degan uu yiraahdo anigu ma furayo dukaankaygii haddii canshuur lay weydiido sax ma aha sababtoo isaga kuma waajibto waxa lagu waajibtaa ninka hantida la weeye oo guriga iskala weeye
boosaaso oo hadda aan u malanaya meesha hadda laga soo sheegay arrintan ku saabsan canshuur diidmada canshuurta markii u dambeysay aan tegay wadadii 13aad ayaan kasoo dhagax dhignay oo magaalada horumarinteeda iyo bilicdeeda ah intaasoo ciidan aad joogto oo ka hawlgasha oo nabadgelyadeeda ilaalisa aerobortooyinkii baa laga dhisay dekadii baa la bilaabaya mashruucii ugu weynaa ee biyogelinta ee Puntland ayaa dhawaan ka bilaaban doona boosaaso waxaa kale oo socda oon rajeynaynaa maxaa la yidhaahdaa solar lightski oo ka socda yani waxaana kaloo mashaariic oo horumarin ah ama kalluumaysi ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ayaa ka socota marka waxaas ma iska imaanaya ma fii sabiilillahi bay ku yimaadeen soo juhdi iyo dowladnimo iyo nidaam uma baahna yaa ka dhoofaya aeroportka ninka ganacsadaha weeye ninka miskiinka ma dhoofo yaa ka dhoofaya dekada xooga soo degaysaa oo loo ballaarinaya ninka yani badeecada haysto oo dukaanleyda ah oo maxaa la yidhaahdaa ganacsadaha oo dhaqaalaha haysta wey maaha qofka miskiinka iyo ninka askariga buurta ku dhimanaya maaha Puntland saan hore idinku sheegay waxay galaysaa socod dheer waxay u socotaa jihaad iyo in iska celiso daacish iyo shabaab inay dalkeeda ka xoreyso waxay u socotaa inay horumarto waxay u socotaa inay dalkeeda dib u dhisato ayay u socotaa taasina waxay u baahan tahay taageero waxay u baahan tahay garab istaag waxay u baahan tahay in lagu garab istaago oo dowladda lagu taageero haddii aan marka aan la helintaasna oo aan dee dowladdu ay dakhli ay ku hawlgasho oo dalkeeda ku xoreysato oo cadowga isaga celiso aysan helinina de waxa weeye wax inoo dhisan iyo waxaan rajeynayno iyo waxa noo soo socda intuba oo ha ogaadaan inay shidoobayaan oo ay dhibu ku imaanayso taas micnaheed marka waxa weeye dee yeeli mayno oo ma ogolaanayno in yari intaasoo horumara oo dalka raba in laga suubiyo oo horumarkiisa oo difaaciisa oo xoreyntiisa ahi in yar inay hor istaagto oo shidayso lama aqbalayo mana yeerayno una malaymayo dadka reer Puntland aan ogahay dad karaamada sharaf leh wanaagsan inay yihiin inay iyana aqbalayaan behaviorka noocaasa iyo dhaqanka noocaasa waxaan ognahay oo kale in sheegaya marka kuwa intaas diidan oo dowladnimada yani shidaynaya inay qaarkood ay shabaab siiyaan canshuurta aan ognahay inta loo yimaado xataa lama baryo lama yaraado canshuur bixiye telefon baa loo soo dira telefon bay ku bixiyaan marka ninka shabaab shaba inuu siiyo canshuurta oo bixiyo dowladdan u diidan micnaheedu maxay tahay micnaheedu waxa weeye shabaab way dili karaan way laakiin dowladda ma dili karto ma xiri karto wey marka ma waxay rabaan marka dowladdu si shaa inuu u dhaqanto miyay rabaan miyay rabaan ilaa wanaagiisa iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa nin kasoo horjeeda oo diidan inuu canshuurta ku bixiyo ogolla inuu shabaab u adeego u khidmeeyahay dabcan micnaha annaga shabaab u noola mid yahay wey runtii taasaan u qaadanayna oo qof raba weeye dalkan inuu dhaxal wareejiyo kuna wareejiyo shabaab ayaan u qaadanayna runtii saa hore u sheegay dadka Puntland ama Boosaaso ha joogaan ama Gabaxyo ha joogaan ama Baran ha joogaan dad wanaagsan wey intooda badanna dad dowladnimada iyo nidaamka aaminsan wey sababtoo ah haddaysan taasi jirin 19 sano oo dowladnimo ahi ma aanan haysaneyn iyo nabadgelyaha iyaga ugu horeeya waana ku ammaanay marka inta yartaa oo shidada wada oo xaalad abuurka sameynaysa waxaa loo baahan yahay in meel looga soo wajeesto la iska qabto runtii intuu taawo wixii annaga nagaga aadanna waa aanu ka gudanayna insha Allah haddii la yiraahdo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku boorinaya dadka Puntland in ay nidaamka dhowraan inay midnimada adkaystaan in ciddii shida wada ay ka hor yimaadaan in canshuurtu waa waajib la bixiyo waxaan mar labaad ku tirsiyaa waxa weeye inaysan jiri doonin dowladnimo haddii aan canshuur la qaadin dalka nidaamna ma jirayo kala dambeynna ma jirato sharcina ma jirayo waxaan ku faanayno oo Soomaali iyo adduunka ugu faanaynahay ma ay jirayaan waa ay dhimanaysaa insha Allah guul iyo khayr baan idin rajaynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh